keli noqo. aan ku sii talo ay yar tahay dadka yaqaana, dadka sameeyaana ay ka sii yar yihiin keli noqo. wakhtiyadan dambe waxa aan isku arkay dhaqanka ah jacaylka kelinimada ama gaar noqoshada, xaqiiqna aan kuu sheegay aad iyo aad ayay wax ii tartay keli noqoshadu. haddaba aan kaaga waranno sababaha. keli noqo waxa aan uga jeedaa in wakhti aad la qaadato naftaada, wakhtigaasi ha koobnaado sida saacado ama ha dheeraado sida maalmo, intuba waa keli noqosho. dhaqanka kelinimadu waxa aan ku jeclay wanaagyo badan oo ay ka mid tahay in wakhtigaagii kuu dhowrmo oo cid ku mashquulisaa ma jirto, qorshayaashaadii oo kuu hirgala. waxa aad helaysaa fursad aad ku qiimayso noloshaada. fikirka togan ee wax tara waxa uu ku iman marka aad keli tahay. hal abuur ayaad yeelanaysaa. waxaa la sheegaa in dhaqan keli noqoshadu uu yahay astaanta dadkii waaweynaa ee dunida soo maray, oo diinta islaamkuba waxa ay ka bilaabantay godkii uu keligii ku cibaadaysan jiray nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. waxaana la sheegaa in la jeclaysiiyey kelinimada markii uu ku soo dhowaaday 40 jirkiisii. keli noqoshadu maaha macnaheedu dadka ka go', balse waxa ay ku baraysaa inaad dadka kale xad u samaysid aanay soo dhaafin. waad ku mahadsan tahay daawade, waxaana tahay qof muhiim noo ah. halkan kala soco buugata daraasadaha maqaalada iyo qormooyinka muhiimka ah oo dhegaysi ah ama naqal ah. nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta buug maqal. barta guduudan guji suulka kor u taagan riix hadad ka heshay lana wadaag bulshada.